بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن قيارتها هودينا قداوانيسا مeel kasto aad joogtaan halkani waa TV-ga Soomaaliweyn oo isbuuciiba hal mar aad ka daawataan magaalada Youtube iyo nawaaxigeeda adinkoo inaga daawan kara obna kanaal inta kale caalamkana waxay si toos ah inooga daawan karaan barteena internetka ciwaanka iyaga oo yahay www.somaliweyn.com qiyaarta aynu jecelnahay oo barnaamijyadeena caawa waxa ugu horeyn doona aayadaha quraanka kariimka waxa ku xigi doona darsigii diiniga ahaa sidoo kale waxaad daawan doontaan barnaamijyo kale aad u xiiso badan oo kamid yihiin barnaamij lagu soo dhaweynayay Marwo Caasho Geesdiir iyo waliba Marwo Maryan Jacayl oo dhaqaalana loogu aruurinayay wadada General Daawud ee magaalada Muqdisho kaasi oo ka dhacay magaalada Gothenburg haatana aayadaha quraanka kariimka ahaa بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينتين والدين حريص. النبي صلى الله عليه وسلم مركو أصحابتي سلدر دارمي وحكولي كونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين. نقلة ضدك سودوية ضدك أويرة ضدك سوتشيتا يعني نقولنا ضدك إرياء. النبي صلى الله عليه وسلم وتشددي إلهي سبحانه وتعالى أصدر نوحة أحين رحمة للعالمين محريس لو صدر ضدك مالو البيت شوغان وقت البيت شوغان waxaa dhacda marmar in masaajidyadeenna caruurta yaryar markay khaladaad ay sameeyaan loola hadla si qalafsan oo aad u adag taasoo ka hor imanaysa risaaladii ama message-kii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu lahaa kunu mubashiriina wala takunu munafiriin maalin kamid ah maalmaha xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaa dhacday nin Carabiya soo galay masaajidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii markuu masaajidkii soo galay ayaa waxaa dhacday dicil kamid ah diciladii masaajidada ayuu bilaabay inuu ku kaadiyo markuu bilaabay inuu ku kaadiyo ayaa qaar kamid ah saxaabadii way kaceen way xanaaqeen waxay rabeen inay ninka markaa qabtaan oo ama banaanka masaajidka u saaraan ama qaarkood xataa ay gacan ula tagaan hase yeeshee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dejiyay markuu ninkii dhamaystana wuxuu ku yiri ahriqu alayhi ma anbur biyo ku daadiya waxa weeyaan nijaastii ninkii markuu dhamaystay ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u yeeray markaasuu wuxuu la hadlay sidii nabi uu la hadlay jiray dadkiisa oo kale wuxuu ku yiri meeshan waa masaajid wama ju'ilat almasajid lihakada waxyaabahan aad sameynaysid masaajidka looguma talagelin si fiican buu ugu sheegay ninka uu khaldamay waxa dhici karta inuu aqoon darro u geysay si u baahnaa in wax yar loo sheego nabiga sallallahu alayhi wasallamna uu sheegay ninkii markii loo sheegay waxay masaajidku hawshiisu ay tahay si degan oo fiican loogu sheegay ayuu gacmihiisa taagay markaas wuxuu yiri اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا بور الهو اني محمد كليغي نون نحريسو cid kalena hu naxariisan markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu qoslay tabasumay buu wuxuu yiri ضيقت واسعا wax aad u ballaaran oo naxariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaad ciriirisay oo laba qof
kusoo koobay wuxuu rabaa message inuu siiyo asxaabtiisa intuu u jeedsada asxaabtiisa buu wuxuu ku yiri dayaqtum calayhi fadayaqa calaykum waad ku ciriiriseen oo waad ku qayliseen oo waad ku boodeen waxa weeyaan isagina ducadii buu idinku ciriiriyey oo laba qof kusoo koobay annagu masaajida ilaahay yaanan caruurteena ku ciriirin aan soo dhaweyno aan gacmaheena u furno كونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barnaamijkeena maanta waxa aad nagala soconaysaan xaafadan la yiraahdo Gamlestad waxaana joognaa magaalada Göteborg caasimadda labaad wadankan Sweden barnaamijkeedin kugu soo idin soo diyaariyay quruxda badan ee daawanaysaan Shamsa Daahir oo kamid ah ganacsatada iyo waliba gabdhaha ku nool magaalada Göteborg caasimadda labaad wadankan Sweden mid kamid ah hooyooyinka qaaliga ee ku nool magaalada Gothenburg caasimadda labaad ee wadankan Sweden waa maamo Faadumo macallin soo dhawaaw بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بعد ما هتسنتين ولا لها إنه يمت إياه أنت كسرق يبقى شيء ماشي وحنو ملاينا إنه مرتيال كنا بديهين هذا الكل بديه كارجينهين مركا وحيرني يقرأ الله هذا وحبيبنا هاي لبدا بروان جرناي marka codkayga ha u tixraacina sida qaarkeed bismillaahi raxmaani raxiim waxaan leeyahay barbarka ingiriiska buu baaqa nooga yimid maryam beeliye intii ay ku beeganeed caasha bilan iyo intii baabka wada taqiin bilicda iswiidhan bilan ay ku soo dhawow soomaali badidaada bilan ay ku soo dhawow gabdhaha badidooda bilan ay ku soo dhawow calanka babanaya bilan ay ku soo dhawow boqol allaha kaa dhigiyo tii la beegsadaa soomaaliya ha noolaato markii baladkaynu digay duuqu uu ka dhacay gabdhaha birmanaya oo booska soo camiray maryamo beeliye intii ay ku beegan tahay caasha bilan iyo ammaan baan u bixinayaa allaha barakeeya meeshay ku badan yihiin haddaan qiirooda qalbigayga aan la kaco gabdhaha buubaya oo boolka saari karin wiliba birmanaya oo booska soo camiray caasha beeliye intii ay ku beegan tahay maryamo bilan baan ammaanteeda bixinayaa allaha barakeeya meeshay ku badan yihiin calanka soomaaliyeed baa u ciidina dalkaynii dumeeyeen daayadii rabaa ummadda kala daagtabaan daawadeed rabaa soomaali kala duudadaan daawadeed rabaa allaha darajeeyaanna waa u dagahayaa midnimo soomaaliyeed baan ka ahay maqsuud annaga madaxweynahaynaan ka nahay maqsuud mudane sheekh shariif iyo murtiyaalkii baan u kici madaxda kulligeedii baan kaaga ahay maqsuud madaxda gobolkeedii baan kaaga ahay maqsuud cabdiweli ayaan kaaga ahay maqsuud weliba tarsan daadidkiisaan ka ahay maqsuud miladarka daacadkaa baan ka ahay maqsuud baliiskaan baaqarayn baan ka ahay maqsuud maryama habarooni yadigaaba booska hay soomaaliya ha noolaato ku soo dhawow walaal maasha allah maasha allah maasha allah baan Faadumo aad iyo aad ayay u mahadsantahay sida qiirada leh ay barnaamijka inooga qayb qaadatay markan waxaan rabaa inaan u yeero marti inooga timid wadanka UK caasimadiisa London waxay ka socdaan urur la yiraahdo nabadda hirdoog waxa u hadli doona wiil la yiraahdo Daahir Damal ku soo dhawaw Daahir Damal reer Sweden galab wanaagsan gaar ahaan magaalada Göteborg
maamada horta waa umad celina maasha allah ayada ka hor xoogo waa la aamusnaa meesha waxay ahayd boorine laakiin aniga sacan fiican ay usoo dhaweyseen ayadaa idin shaqeey magacayga waa daahir damal oo soo gaabina insha allah waqtiga aad u yar sida la ii sheegay waxaan ka nimid magaalada London waxaan aas-aasnay urur maalag waxaa la dalada nabadda hirdoog waxaan aas-aasnay sanadii 2010 bishii 6 ururo badan oo maqasheen oo nabadda ka shaqeynayo ama ka shaqeynayo samafalka annaga waa ka duwannahay runtii waxaan ugu duwannahay Soomaaliya ku dhalanay waxaa u baahnay inaan Soomaaliya dib ugu laaban maadaama ay sidaas tahay aniga meeshaan ka imid inay nabad naqataa dan igu jirtaa marka waxaan runtii istusnay in ay jirto baahi ah dad ka shaqeeyo in la helo nabadda muddo gaabanna maahan waa in laga shaqeeyo nabadda weligeed laga shaqeeyo ilaa annaga aan ka dhimanno ilmaheen ay naga dhaxlaan xilliyadii hore annaga ma lahayn qolo ka shaqeysa nabadda waxaan lahayn dowlad iyo shacab keliya ahayn cid u dhaxaysa ma jirin markii dowladdii baaba'day shacabka cid daba qabatay walba qof walba ilmaheeda la qaxay marka waxaa u baahan inaan waxaa u aas-aasnay in la helo ummad aan siyaasadda ku jirin dowladda aan ahayn shacabkana ka madax bannaan u dhaxeeyo shacabka iyo dowladda haddii dowladdanba ay naga baaba'dana celiyo oo dib damba loo qaxin dadka isu keeno culummadii siyaasiyiintii dumarkii si nidaam kale loo sameeyo oo aan mardaba aan u qaxin sababtaas ayaa nagu kaliftay muddo 2 sano London ka shaqeynay runtii waqti badan aan gelinay guryahan ku wareegnay television intaan ka hadlin ka hor guryahan ku wareegnay waqtigeena ku bixinay dhaqaalaheena ku bixinay waxaan raadinay bulshada dadka ugu muhiimsan oo dumarka ah ayaga nabadda raba ayaga nabadda jecel ayaga nabadda raadiya way nala qaateen runtii gabdhaha London ugu waaweyn oo ugu caansan oo nabadda ka shaqeeya runtii way nala qaateen haddana waxaan nahay together ayaga iyo annaga waxaan ka jirnaa runtii meelo far badan ka jirnaa ay ka mid tahay Soomaaliya gudaheeda iyo wadamo far badan oo Carabta ah iyo Mareykan marka maanta socdaalkeena runtii wuxuu ahaa socdaal ururkaas ka hadlay ma ahayn laakiin waxa u nimid in wala cazumay kan dan waxaan ugu talagalay inaan idin sharaxno waxaan qabano waxaan jeclahay marka insha Allah reer Sweden gaar ahaan YouTube Bori ama Stockholm inaan ka helno dad nagala shaqeeya nabadda aan siyaasadoon ahayn sababtoo qofka mar hadduu wasiir qaato ama mar xildhibaan uu noqdo waa ku adag tahay inuu ka shaqeeyo nabadda maxaa dhacay shacabka Soomaaliyeed ma aaminayaan qof mar ka mid noqday dowladda waxaan soo barana way laakiin waxaan rabaa dad aan siyaasadoon ahayn ma siyaasadayna xun tahay waa shaqo runtii waxaa ka mashquulaysaa ciyaalkaadii waxaa ka mashquulaysaa dad xaas leed nin ama naag waa ka mashquulaysaa waxaa dhici karta inaad cunto cunin oo habeen meet u fadhiso sababta aniga inta aan soo maray ugu filan anoo sameeynayo nabad waxaa dhacday subax gurigeena ka baxo oo habeenkii 2 o'clock aan soo laabto oo ilmeyga aan arkin nabadan ka shaqeynaa qof ka shaqeynaa siyaasadda waa iga sii daran yahay aniga dantiisii iyo ilmihiisii dhan uu ka tagay laakiin waa shaqo uu galay kama soo bixi karo uma soo laaban karo nabadda ka shaqeeyo marka waa inaan helnaa runtii dad ka shaqeeya nabadda ready to board insha Allah waa idin soo laaban doonaa annagoo u soconno in aan ka wada shaqeyno nabaddaas waxaan kaga baahannahay guddi insha Allah tacaala waxaad arki doontaan mar labaad haddii aan ka baxo arrinta ururka waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso maanta 15 yar jira afgooye ilaa xamar dawladda gacanta ku hayso su'aashtaan waxay tahay ma sugna dawladda inay nabadda ka keento mase waa la shaqeynaa waxaan ku khasbanaa inaan la shaqeyno waay Turkiya dhahay lacag far badan ay Soomaaliya keeneen lacag ay haayaan ayaga noo dhisay wadanka Turkiya dadka noo ma dhisayaan Turkiya wadankeedii miinta ku qabatay 2 sano ka hor waxay isugu yeertay ururada islaamka waxay ku ururiyeen lacag 300 milyan oo dollar muslimiintii ku ururiyeen lacagtaas ay haayaan ay rabaan inay Soomaaliya geliyaan nad jabku lacag ka baxaysa ma ina eedeynay laakiin lacagta ay Soomaaliya u talagaleen muslimiintii ku ururiyeen waa 300 milyan haddii ay dhamaato
lacag kale ma soo heli doonaan ma ogin jeebkooda may naga sii doonaan ma ogin ma bixi doonaan ma ogin dalkii askale marka annaga askale marka waxaa u baahan inaan iska ilowno turkida waxay noo qabanayaan khayr allah siiyo haddii ay sii wadaayaan waa soo dhawaynaynaa iyagay kadayna kaalmaynayaan waa soo dhawaynaynaa laakiin annaga soomaali ahaan maxaa nala gudboon inaan dalkeenna ka qabanno inta adduunyada ka dhiman oo loo laalaabayo sababta weligii waan jiraynaa sooma qofka binaadinka wuxuu soo maraa 3 marxaladood marxalad aad raaxaysato marxalad aad mas-uul tahay iyo marxalad ay tahay in lagu haayo oo aad da' noqoto maalintaad dhalato ilaa 18 years aad ka gaarto raaxa ku jirtaa renti guri shaqo ma kulihid cunto ma ka fakaraysid dharka soo ma ka fakaraysid aabay hooyo mas-uulka ah 18 maalintaad gaarto waxaa ku bilaabanaysa walwal maxaa ku noolaataa maxaa barataa ma guursataa mas-uulata maalintaad sigista dhaaftana waa ilmahaada inay ku hayaan annaga marka waxaan ku jirnaa marxaladii aan ahayn mas-uuliyad ahayn marka ilmaheena intaan ku dhalnay iyo kuwa soomaaliya jooga haddii ugandeska iyo turkiya ay dhaan dhaqaalmaheena soomaaliya waa ka baxaynaa soo qaxaynaa dan aqli ma marka insha allah waxaan rajaynaynaa soomaaliya meel walbo qof soomaali ku nool yahay in aan u istaagno in dowladeenna aan garab istaagno waa laga yaabaa in qaar al-shabaab meesha ay fadhiyaan aan dadkayga wadaada ahay laakiin al-shabaab soomaaliya xal uma runtii laga hadlo waayo xal ugu ahayn waa su-aal u baahan in runtii waqti dheer qaadanaysa ma ka hadlayay laakiin soomaaliya waqtigan la joogo al-shabaab xal uma marka insha allah tacaala waxaan ku baraarujinaa in badan waxaa laga doodaa dastuurka waxaan ka codsanaa inaad waqti ku dhuminina westernka diyaariyey $60 million uga baxday lagama yaabo buuggaas mudaaharaad aan sameynay in lagu joojiyo ma laga yaabo laakiin annaga see uga hortegi karnaa inaan midowno waxaan kaloo uga hortegi karnaa wixii ka qalda inaan dhahno 7 sano ma sugi karnee 4 sano kadib dastuurka waa in mar labaad la akhriyo oo wixii khaldan laga bedelo laakiin daatana waxaan la keenay waa diiday gaalada waxay ku leeyihiin okay waa fiirina yaa waqti ku socdaa marka dowladda cabdiqaasim cunugii 6 sano jira maanta meeqa sano jira 18 sano jira maanta marka wax walbo diidaba waqtiga anagu nagu socdaa marka insha allah waxaan rajaynayaa inaad ku soo gabagabeeyo waxaan ka codsanaa Soomaaliya meel kasta joogtiin in nabadda laga shaqeeyo in aanan waxba la diidin in hor loo socdo in la saxo wixii khaldan oo aan la diidin waxaan ku soo gabagabeynaa insha allah mari jacayl wax badan waa la amaanay meelo badanna waa laga amaanay meelo badan oo Soomaaliyeed oo soo taagneed amaan waxaan umaleynaa uma harsan faraxsanahay telefishinka ay ku hadashay maalin waxay ka hadashay madaxtooyada tagay darbiyada Ingiriiska ka qoranay tir annaga Soomaaliyeedna waxaan u sheegay tir in Ingiriiska tiraan waa villa Soomaaliya waa Soomaaliya meesha wax ku baabay oo Ingiriiska lagu qoro Soomaaliya lagu qoro waxay dhahaynay tir gabarta guriga ku laabo way ka saxsantaa sababtoo ah dalkeedii waa luqadeeda lagu qoraa runtii Aisha waa soo dhaweynaynaa waana qof aadaan badan aamusan runtii mutacallimidna ah waxtarna leh waana garab taagannahay waxaan rajaynaynaa insha allah iyadoo dalkeeda u shaqaynaysa iyo diinteeda kulley waa la dhimanaa inay dhimato reer Sweden waxaa yar idinla kaftomo Soomaaliya daadiin say ugu noolaan rabtiin dad aamusan oo mid aniga oo aan hadlayn annaga London iyo Soomaaliya oo ya bana Soomaaliya annaga London iyo xamar isku mid ah Mooriyana qaylo dagaal ay insha Allah gabdhahan markay qodbaynayaan iyo maamada meesha fadhiso ilaahay ma khaatimadeeda u suubi insha Allah si fiican loo soo dhaweeyay insha Allah raggeena insha Allah sabcino oo aamuskeena badan waa maasintii Soomaaliya insha Allah nabad u jeerna insha Allah aad
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay daahir damal oo nooga yimid wadanka ingiriiska caasimadiisa London markan waxaan rabaa inaan u yeero Ibrahim Xasan Nuur Qalinle oo kamid ah ragga ku nool magaaladan iyo Tabori wuxuu ka hadli doonaa doorka ragga iyo waliba hoggaanka siyaasadeed بسم الله الرحمن الرحيم مركور وحن سلام يا دمان مرت شرفك هوينك دمرك رجع وحن كلام مركلا سلام يا ولاشين مرين جعيل بديكر مرين قرن يا عندها إن شاء الله هاي مرين جعيل ضدنا أفكار كلها لكن قرن وكاسع مرين قرن وحن سلام يا ما شاء الله مرين قرن سعيد الصومالي فرمت يا ربي الله وأقول ما صدق سعدية خصوصاً مريم والله سودو عاش سيدو كلاين وسودوين يا عاش عمر جسدير رنتي هذا الكلام حاليزي إن مقالة يتبور هذا الكلام اللي قال لي رنتي هدي رون الشيء هذا الكلام اللي قال لي حاجوجا معرتي أودي مقالة آذن أورا جوجا لكن قبضون الجوجا حسات وعيد ديدن ساسيت هاي وعيقو قصبين وهذا آذن عدي أو يحكمي وهذا إن شاء الله إلى دولاده وما صنت آذن رنتي وحأمان مدن ولا شيء شمس ظاهر وحوق بدن جلسي كلهم كانوا مدعو رنتي وقت جيدن وهرتي إن سكومات كان سومالي سكوما ما أنت رنتي وحدريمك تا كل مدن نوعا وكلا وحيد بديان من دمه marka insha Allah waxaan rajeynayaa inuu noqdo kulankan mid isku keeno ummadda Soomaaliyeed sida walaalkii daahir sheegay waxa iftiin yar ayaa jira iftiinkaasna in looga faa'iideysto midnimada hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah hadii aan u soo noqdo marka magaalada Itubori magaalada runtii waa magaalo magac weyn ku leh horumarka iyo geedi socodka Soomaaliya waxa dareemi kartaa caasho ayaa naga tagtay oo maanta ururka haweenka ama gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed waxaan naga tagay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed runtii oo reer Itubori aan laftigiisaba runtii wax lagu faano waaye marka walaal Maryan waxaan rajeynayaa in maaragtay uu noqdo booqashadaada mid aad ka sheekayso hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah waxaan marka hadalkan aan ku badanayn uma soo istaagin inaan hadal badan hadlo wixii hadal waa noo dhimay hadii Ilaahay yiraahdo waxaan runtii aad u soo dhaweynayaa daahir iyo ururkooda runtii howl badan oo muhiim ay hayaan waxaan jeclahay maaragtay ay laftigooda inaan garab istaagno runtii waana ka ballan qaadaynaa daahir hadii Ilaahay yiraahdo adiga ururkaada iyo dalada aad wado inaan ku garab istaagno sababta waxaad wadaan runtii waa wax ummadda Soomaaliyeed isku keeni kara insha Allah marka aan hadalkan ku sii dheeraan oo runtii sugayna waxyaabaha muhiimka ee walaasheen Maryan iyo Caasho noqdaan waxaan jeclahay in hadalkaas ku soo gabagabeeyo waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaah إبراهيم قليل aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markan waxaan rabaa inaan microphone-ka u dhiibo maamo Maryan Hiraabe oo ayadana kamid ah maamooyinka magaalada Itubori maamo soo dhawaad Bismillahir Rahmanir Rahim Ahya wadani ya Somalia ahya wadani أهيا ودني يا صوماليا أهيا ودني تنتبين إسلام بوك صومالي كتال بود هدي أجلم باقيا ودني أهيا ودني يا صوماليا أهيا ودني ما شاء الله أنك أرتا هذا سيريو أنا جا أدعوين أنت هذا مسج برات السداد سنة سجرا أنا أدعوين وأنا هاجر لك مساكين تصو أرو لسا محاولة هاي وين كصومالي بقول شيلين لغو مرصوفة كميال كسو أرو نادرسيون كأت أركتين لغو نسي
أنا بيك ما كبجر وحن صار واكينجر سيداسا ماركت إلهي xornimada lagu dhaliyay ha u malaynana dhedheel talyaani cinquanta markii uu nagu soo noqday uu noo oogu yimid wuxuu sharad ku soo galay inuusan laba isla socotaan la arag oo Soomaaliya Comitato Centrale uu ka bilaabay buuggii uu qaatay habeen madoobo bad dhexdeeda geli wuxuu yiri Costa Ane Said Masterale waa sanadka lixna waa baxday lixna waa dhimantahay ninkii la xiray oo saafi gurigiisa ka baxay qofkii soo raadsadana 6 bilood oo gaasira uu leeyahay saasay adduunyada ku soo lagu soo dhedheel ha u malaynina muxuu ahay raaxada iyo dahabka aan xambaarsanahay iyo muxuu ahay istiraah kuma iman muxuu ahay sanada wiil guursado galbaxsha ma jiro gogol carfoon wiil ku seexdo gam'aan ma jiro inana inan ganiga bixina ma nagu garbaa muxuu ahay dhabihii ugu jiray oo iska jajab ah waxay soo bixinaysaa kaartuunkii wax kala maba jiraan hadde Soomaaliya maamadu waxaan ka codsanaynaa inay noo wado raalina naga ahaada xoogaa inay noo kashir inay nooga taataabo taariikhduna ma gabowdo oo ma duugowdo way qoran tahay Soomaali gabdhihiina dahabka xiran oo dhiiba waxaan ku soo ururin jirnay midaan halkan xabo ay haysato u lamaynay hadda armaajooyinkii waa buuxaan gacmihii waa buuxaan dahabkii dhiiba inta tabaariikhda dhiibta tabaruca inta dhiibta xaaji maxamuud deere in la dhihi jiray iyo raaxo ayaale oo labadaas fool oo ilkaahu ka maqan yihiin ugu badnaa jirta waxay tiri waxaa la yiri raaxoy marka afkan wax iska geli waxay tiri afkaygan duleela ilkahaygan dahabka mudan waxaa ka daraaday wadankeena daafaciis marka hawdka iyo meesha daaranta badan dooxadiya hawdka iyo meesha daaranta badan udaqi kari waayay geeli dareeri jiray eya naloo darina Soomaaliya waxaa noogu maqan waa dagaalka badan walaalkeenaan dilayna dad noogu roon eya naloo darina Soomaaliya hadduu Cabdullaahi oo aabbaha cubtamay hadduu Cabdullaahi oo aabbaha cubtamay oo hooyada ka bixiya cidnoon kolay allow cadowgaaga cagta
halka hoose geli allow habartii dhashayeeyaadan dhaxalka noqon allow adagii dhalow naar ha ku dhawaay Isa Maxamuud Girli baxyeero girli gaadsidiisu yeer allow gaalkii kuweega gadaal u dhaco oo gulka soo qaada gooda ismaha u fadhiya todobada qarumaad isugu tagaan halkay todobada qarumaad isugu tagaan inanka laga soo tilmaamaan u taaya taliya cabdullaahi ciise Soomaaliya ha isdhacdo ha ismaalowdo ha midowdo ha walaalowdo ha mudowdo kan qabiilka diidaale midnimada u doolaale kan qabiilka diidaale midnimada u doolaale kan daayicin hawshaale kaan lacag ku darsano wax kastaba u diyaaro ku dib jiray dalkiisaale Soomaaliya noolaato ha noolaato waa su'aal daaweyne dalka yaa iskale annaga iskale dalka loo kaco waa laga hurdaa maamo Sacdi Soomaali iyo weliba maamo Maryam Hiraade kulli aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin markan waxaan rabaa khudbadii qiimaha lahayd ee gudoomiyaha dumarka qaranka Soomaaliyeed Caasho Gasdir inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo Caasho بسم الله الرحمن الرحيم marka hore dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka labaad reer YouTube sida sharafta leh ay soo dhaweeyeen maaha marka koowaad waxaan aad ugu sii mahadcelinayaa gabdhaha isxilqaamay of course iyo ragga garab istaagay la'aantiin waxba ma samayn karno waa ognahay mahad gaar ah caliha adinkana waxaan rabaa inaan ka sheego sida aan u noqday gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed ani magacaabis kuma imaanin laakiin rabitaanka haweenka Soomaaliyeed dhibaatada hayso markaan dhex galnay oo maaragtaa dumar badan ay arkeen sida aan uga shaqeynayno ama aan ugu raadinayno xal dhibaatada markaas jirta inta aan xamar joogay ayaa keentay dumar badan inaan وهوينك Soomaaliyeed himiladoodii hurdayowka toos waalishiis haatan dabadeed wahaweenka Soomaaliyeed himiladoodii hurdayowka toos waalishiis haatan dabadeed hawsha casha lala qabto ani mar walba horta waxaan idhahaa haweenka Soomaaliyeed waa haweenka ugu geesisan ugu adag ugu sharafta badan maantana Soomaaliya ay ku taagan tahay meesha ay joogaanba sababtoo ah gudaha haday joogaan waxaan aragnay dumarka waa kuwii furay xuduudiyada maaragtay ragga markay kala sameysteen haday noqoto magaalada Muqdisho iyo haday noqoto meelaha kale caleema intay qaateen ay isu fureen dumarka mar walba nabad ay ka shaqeeyeen kuwa qurbaha joogana waa kuwii lagu noolaa mar walba dadka lacag soo diri jiray wax yar naga maqan bis oo aan bilownay haddana dumarka waxay bilaabeen in ay maaragtaa iyaga gacantooda wax ku qaybiyaan isu soo diraan si ay u midoobaan haddii aan midowno wax badanaa xalsanayo
Soomaaliya inta aan joogay marka hore xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shaqeeyay Cumar Cabdirashiid waxaan u ahaa la taliye dhinaca genderka iyo child protectionka xafiiska yani meel xiran oo maaragtaa madaxda la isku ilaaliyay ku dhex jiro runtii haddana iyadoo saas tahay dumarka soo galaayo oo raba inay madaxda la kulmaan qaarkood ma aysan haysanin masquul toos ay galaan yani waxaa moodaa bulshada waxyaabo badan ay dumarka u baahan yihiin inay ilowsan yihiin oo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha kale waxaa laga yaabaa inuu masquul lahaa masquulkaas ciidamada iyo ragga oo kala galaya anaga dad dhaqan ahaan leenahay markay soo galaan dumarka waxaa laga yaabaa inay ka xishoodaan ragga hortooda inay masquusha ku galaan waxaa u bilaabay inaan masquul sameeyo waxaa jiray meel qol yar ah oo masaajid laga dhigay oo ay ragga inta badan ku tukahayeen waxaan sameeyay meel ay dumarku tukadaan because masaajidkaas maalin aan soo nadiifiyay aan salyaal geeyay anoo isdhahay fiirisid talo salyaasha aad dhigta meesha ma yaaliin nin ciidan ka mid ah meesha jooga wuxuu yiri naaya meesha maxaad ka sameyn kasar maxaa dhacay marka arkay inuu masaajidka hor taagan yahay iyo diidan yahay salaadan kale maxaa dhacay markaasuu yiri ma hadda ragga iyo dumarka isma dhex galaan meelahan oo kale ma aha inaad gashin waaya soo muslim ma yihi meesha ugu wanaagsan oo isku dhex galinayn soo ma ah meesha diinta islaamka taalo markaasaan sii fikiray dumarka of course salaada waa laga rabaa xaggee ku dukanaya xafiiskayga qolkaan sikiyay meelay ku dukadaan oo sameeyey meelay biyo ka cabaan shaah ka cabaan yani xafiiska keliya oo xafiis si fiican u dhaqaaqayo runtii walaalkay haddaa wuxuu ka dhawaajiyay wuxuu yidhi reer Sweden waa aamusantiin waxaa u maleeyaa waa aamusanahay laakiin wax qiimo lahaan sheegnaa midda kalena adaabta iyo aamusnaanta oo ka duwan qaylada iyo rabshada runtii laygu doorta aniga annagu waxaana la yidhaahdaa haweenka harsan waayay hooyan waayay hurdadiiday hooyaana la yidhaahdaa haweenka harsan waayay hooyan waayay hurdadiiday hooyaana la yidhaahdaa hadafkeenna wuxuu yahay waxaan haabanaynaa dagaaladii lugaha ka gooyeen oon aad ula shaqeeyahay runtii oo labada luguba ka go-an imagine qof iskool aan haysan waxbarasho haysanin gabar ah labada luguna laa adoo lahaynaa mararka qaarkood oo aragteen cariiriga aa maraysaan marka waxaa la rabaa inaan iska fikirno gabadha wax ka bedeli kartana aan caawino si wax uga bedesho haddii siyaasad ay xiise haysan aan ku kaalmeyno qayb maaha siyaasad in laga shaqeeyo haddii ay maaragtaa wax kale ka shaqeyhaysay rabto inay maaragtaa maxaa tiraa caafimaadka ka shaqeyso haddii ay beeraha rabto inay ka shaqeyso yacni organizationna iyo ururo aada kuu caawihaya jiro in lees xilqaamo oo aan lees riixriixin gabdhaheena xoogaa mararka qaarkood waxaa noo jiro xiblahay maxay ka galay taas inaan yareynaa fiican waayo wadanka anaguna sugaa runtii anaguna sugaaya sanadkan mana ah inaan ka aamusno waxaan leeyahay maryan iyo dadka lamid ahna inaan garbahooda istaagno waay maanta oo kale Sweden haddaan $5 iska aruurina bishii akaan gooni ah oo hubna intaan samaysano dadka qaarkood inta u dhiibnaan dhihi karnaa waxaasaan u baahannahay meeshaas wax laga qabto meeshaa rabtiin adinkaa dhihi kartiin hadday xamar tahay hadday garowe tahay hadday maaragtaa galanka shanaad tahay meeshay doonta ha ahaato because annaga soomaalina nahay hooyanaha waxaan filayaa inteenaan meesha fadhida ilmahan dhanna soomaaliya oo dhan ay u dhan yihiin ma aha ilmo oo annaga nagu abtirsado qof walba iyaga ku abtirsado ma ahan qaba hadalkeyga intaasaan ku ekay waxaan leeyahay haweenyahow wanaagsani wadnahayaga ku yaala wadaajir bay laba gacmood ku qaban wadaajir bay laba gacmood ku qaban anisweeshano
هذا الجيل kaas ma aha laakiin inta aanan ururka qaran haweenka qaranka Soomaaliyeed aanan sameeynin marka hore waxaan sameeynay urur aan ugu magac darnay xarunta mideynta iyo horumarinta haweenka Soomaaliyeed haween kala gedisan runtii isugu yimid oo magaalada Muqdisho aan marka hore ka sameeynay marka waxaa bilaabatay wasaaradda haweenka xoogaa isfahmaya oo ururka qaranka waagi hore markuu jiri jiray wasaarad ma jirin marka positionkiina qaadayno kala xoogaa problema ka dhacay laakiin waa saxnay waxaa la yiri xamar oo kaliya ku egyahay laakiin ma uusan ahayn ilaa ay garawangeena macnaha Puntland meel walba waxa ka mid ahaan tagnay runtii uu soo hagaagay waxaan isku dayeynay inaan u sameeyno iskuul dadka dhibaatada gaartay oo kale hooyooyin badan oo waxaa jira ilmaha ka xanuunsan yihiin wax kalena ma aha iyaga laftirkooda ayaa waxaa ku dhacay isbitaal xumo ilmaha kafka ku raaga oksijiin la'aan ilmo badan oo curyaan ay dhaleen qaar maaragtay maadaama ay dhakhtar waayeen isu furmay yani waxaa arkaysaa qof isu furantay 2 sano aan shaqaysan karin xaalkii kaadida aan isku cesho karin ilmihii qof la haysa lahaynin guryaha qaarkood nooga baxa la dhahay marka ururo meesha ka jiraan intaan ururinay xalan oo kale maaragtay Amazon joogtaa qaarkood lacag la'aan daaweeyay 130 gabdhooda ku jireen 130 gabdho yar yar ay u badnaayeen 15 wixii ka weyn ilaa 20 hal qof oo magaceeda xataa qori karto ku jirin xitaa waxaa gadaal maaragtay waxbarashada qofta magaceeda qori jirtay oo la leeyahay ma jiro ciidamada xataa mar aan lacag sii hayo waxaa arkay wiilal yar yar oo wiilashayda la eg markaan lacag sii hayo aan saxiix dhahay suulkiisa ay runtii maalintaas oo ishayn waayay imagine ilma 20 jir Soomaaliya oo magaciisa qorka iyagoo ciidan ah $100 oo ciidanka la sii hayo waalidkoodii u geey lahayn aan heli karin hadday dhaawacmaan dhiigga waalidka ay shubayaan ama ehelka la soo ordaayo wadankay u dhimahayaan qof ogna malaha dadkaas anaga wax laga sugaya Soomaaliyay taasa isku tiirsaday hadbakiina kaaga daranay taageera weligiine waxaa la ooyayo irmadayga qubanaysa ikhtiyaar qof loo diido oo la adoonsadanaye dumarkeeniyo toosa isku tiirsaday warageeniyo toosa isku tiirsaday hadbakiina taaga daranay taageera weligiine hawayn casha hawayn inaa oyn jecel laakiin marmarka qaarkood qiira baadaysa waxaan sugaayo iyo dadkeena say wax u fahamsaniina ciilka qabaha sometimes wadankeena yani qof tirabta timaado laakiin qof dadku sugaayo oo fahmaayo anaga waa security laga hadlaa wadanka security in loo sameeyo waa road mapka ayaa la yiraahdaa road mapka waxa ugu horeeya security la helo constitutionka maaragtaa good governance wixii kale ma xasuusto waa muhiim inaan security helo laakiin raggeena su'aalaha aniga Amazon Turkiya security ma noo samayn karaa annaga haddaan haweenahay waxaan ka rabnaa security keena raggeena muxrimka inoo aabbayaan ka rabaa adeerkaygaan ka rabaa ninkaygaan ka rabaa wiilkaygaan ka rabaa qofta muxrimii ahaan ka rabaa inaan ooyin inaan ciishoon inaan gaajoonin inaan ilmahayga iskuul u waayin inaan raashin u waaynin mas-uuliyaddaas raggaa la saaray raggeenaan ka codsanaynaa please and please
haddaa madax tihiin haddaa baayac mushtari tihiin haddaad tihiinba security waxaan ka sugaynaa rageena waayo maaha Amazon iyo Turkey maaha annaga positionkeena waa haysanahay umaleha caruurtay guri qaaraan ku dhahay gurigaana isku joogto of course waa joogaa laakiin culays waxaa ugu noqday banaanka shaqada aan kasoo shaqeeyahay culays ugu noqday xoogii dalku maqal xoogii dalku maqal xilligaada maraysiyo xaalkaada ku sugan tahay xubka masaare xoogii dalku maqal xilligaada maraysiyo xaalkaada ku sugan tahay xubnaga masaare anu saminayna maamusho oo dowlada kale noo yimaadaan xoogii dalka caaway Soomaaliyeed halkee lagu ogyahay maasha Allah sheekada waa sii dheeraya umaleha walaashay Maryam waxaa umaleha dadkii ballan qaaday jidadka qaarkii Soomaaliya inay dhisaan aad u taageeraa sababtoo ah waxaa la shaqeeyaa aniga aad u caawiyay gabdho dagaalkii labada lug kaga go'ay waxaan jeclahay waana ka qayb qaadaha waan idin taageeraa inay meelay maraan ay helaan because guriga waxaa yihiin bacaad waaye meelay mari karaan malaha hadaa haddii wheelchairka loo gado bacaad ma la mari karo marka inaad taageertiin isku daya shaqo fiican ay wadaan intaas in ka badanna waxaan leeyahay waa kuula garab istaagina insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marwa casha geesdiir aad iyo aad ayay u mahadsan tahay khudbadii qiimaha iyo weliba qiirada lahayd ee halkaan inooga soo jeedisay sidoo kale waxaan mahad balaaran u gudbinaynaa Sacdiye Soomaali oo ah fanaanad qaran oo ayadana gubaabada iyo weliba dhiirigelinta ayadana qayb weyn ka qaadanaysay waxaa inoo soo socoto khudbad ayadana qiimo leh oo Marwa Maryan Jacayl ay inoo soo gudbin doonto waxaan rabaa inaan wax yar ka hormariyo oo siiyo Maryan Sacdiye Soomaali inay ayadana kelmad yar tiraahdo iyo wixii guubaaba ee galabta idinkugu tala gashay kaalinteeda weli way dhiman tahay weliba waxay ka qayb qaadanaysay inay si caawiso si dadka ay si baraarujiso Sacdiye soo dhaw Sacdiye waa salaaminta intii hadashay meeshan ku filan hees waxay jirtay wadanka ka hadlaysay waa wada yaqaanaan dadka badan waa wada barteen oo ahayd wadanka waagi kacaanka qofna waxa way waxu sameeyay qofna wax ma sameeyaynin rawaayadan ku jiray hadda ka hor xudayfa waa haya saan jeclahay habeenkii aan soo dhaweynay wasiirka u sameeynay marka heesta qofna dalku dhisay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Caasho Cumar Geesdiir guddiga qabanqaabada oo gudoomiye u tahay Marwo Shamsa Daahir Abdidoon guddiga qabanqaabada oo aad u qiimaha badan walaalkay aadan qalinle goobdoon dhammaantood marti sharafta qiimaha badan gabadha Sacdiye Soomaali oo mar walba u taagan guubaabada marti sharafka ka soo qayb galay waqtigooda faraha badan soo dhumiyay ilmaan hadal kuma jira cali gaani mudana cali gaani filan qaadayaasha idaacadaha TV-yada qaranka marti sharafta nooga timid dalka UK Cabdalla iyo Daahir Damal dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mar labaad iyo mar saddexaad rabaa inaan u mahadceliyo guddiga qabanqaabada oo igu casumay magaaladooda oo ka damqaday howlaha aan hayo haddaan idiin sheego gabadha Shamsa Daahira ayaa anagoo TV fadhiyo noo yaboohday lacag yaboohi anoo ka raadinayo antaas aragnaa walaalo intee degantahay Taboori wax wal qof kale ma heli kartaan marka si tirba noo imaan tashanne marka waa arrin cajiib saasaan shala marka imaanayna qof aan aqoon ma jirto haddana maanta waxaan bartay dad aad u fara badan oo qiimo badan magaaladiinan ma aha magaalo ciyaara waa magaalo dadka wadaniyiinta Soomaaliyeed runta ay ku soo aruureen waa magaalo diyaar loo yahay Soomaalinimada wax qabadka dib u heshiisiinta
ومقالة آد إياد أنا أبو فرح سنة هاي إن شاء الله ما هو البنطقنا وكشيء دونا دبنا مركل وقير بدنا إنك وصل نقد دونا ما يلمام دونا تاريخ لما يلاوان كي أو يتبور ما أنت أي سمايان أما أي نقول شرفين أنا إيو قداميها قرنك مروع عاش عمر جزدير أيضا داوع على السوق هذا ودنك مالك تياترك أنا وجوب إلى وعميس ميسلين وسين أولان دونتا دتك كويا وحنا هاي ورزق هذا جاي دلك أنت دلك هذا ما إيه سبب توقفك واسكرات دكتور مجنون قفك وأنت جاي ماشي يكون علي كلك وفها كسر بحاي وقف جرن إسكده روح على السوق ذي بالكي الركوديش المكسر نعيد الله ركبه قف كسر أو يماذا بدك هالكاس يلا قف جرنا داوع كورن أو ساكا إلا قلي أو وحلا قصة صاري حتى بدك يقوله وكنه مركا إلهي وحن كرجيننا ودن كان إنه ناخذ ودن بركيسن إلهي وحن كرجيننا إنه نقعد على سيرة الدنيا ذا نبض أول رئيسه وحن إلهي كرجيننا إنه نبض نسيه وحن روا مركا إنا إذا كل بلما إنا نبض كوض الشقينا إنا أنت غيرنا الدولة الموجود إنا أنت غيرنا تلك الناطمات مرحبا دولة لين نبض الشعب وحنا كمان كرو وإن دولة وحكا حتى أجرت maanta waxaan haysanaa ififaalo nabadeed waxaan haysanaa iftiin noo muuqdo waa inaan marka ku wada dhagno oon isagaas maaragta aan dhuuqsano magaaladiina weli ma arkin hooyooyin dhahaya 80 sano 2 sano looga dhimano baraambura waxaan ka arkay marwadii maamada dhimata marxuumadda allah u naxariistay tamar ukaash oo habeenkii ugu dambaysa maalmoodina dhimata marka maama Maryam Hiraabe maanta wixii ay sheegtay waa wax cajiiba waxa ku qulsatiin sida madaxweynahooda waagi ay joogeen ay u taageeri jireen iyo Ameerikaana saan u caynayno istisdaatan ceebada u leeyahay ninka madaxweynaha ma noqdo maalinnimadii waxaan leedahay tuuga alaalweynaha sar u dhistay sar kale dhisay intay yaalina dhisa xalaga dhisa sarta marka bal aan taageerno aan maraynaynaa ku dayano dadkeena hadda joogo madaxweynayaashii dowladeena aan adkayno oo aan taageerno haddaan la taageerin waa kasii daray bahasha sooma noqon doonto walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa wax yar inaan idiin sharxo waxqabadka iyo sida ay wax yihiin iyo sidaan wax u rabno waxaa la yidhi war helaa tala helo beese keena ma soconaysa mogta waa in wax la arko maxaa laga rabaa beesada Maryam ilmihi ku biilo rabta masaray ka gala rabta masar iyo meelaha loo guuray lama ogo baluntaan sida aragna insha Allah ayadoo sawirna waa idin tusi doonaa horta anaga magaceena waxaa la yidhaha tashada Soomaaliyeed waa gudbiskiyo waxaana la yidhaha tashada Soomaaliyeed taariikhda dib u raaca Soomaaliyeed tashada taariikhda dib u raaca Soomaaliyeed tashada ترنكي وبا يا Soomaaliyeed tashada tabalacbana ya Soomaaliyeed tashada shacabku tabarbeel ya Soomaaliyeed tashada otobiyaha raaca Soomaaliyeed tashada dowladdu waa tiira Soomaaliyeed tashada nabadda taageera Soomaaliyeed tashada turki inta jooga Soomaaliyeed tashada ilaahayow taajiraadiga wax toosi karo ilaahayow taajiraadiga wax toosi karo Soomaali tabaalac weeye loogu tali ujeedadeena marka waa u wada jeedin waa u helinta ciidda hooyo ما هو اللي أنا بقول لك ده هو اللي وأدبولس كذلك حتى لو بس أنت كسوكر توا أنا بس وأتأكلين تبتك هذا قبل عن شرطي أولنا كقوان لما ترى حمر تالو أنا الصومالي جالس والبتالو قف كتري بامارك توحك الشيء كرو هم قياس كرنا أنا جو حماش سيلي أكل تير الأنتي كل يوم تلنا عطينا نستأكلين تمري على كنت شاذ مشروع وجديد ووضع جمران داود ووحله هندسي وفائدة مشروع محل فائدة محل واقع سمي محل نهر سن السنة وبجاري كرا وحنا نهر سن واتمرك وامك حمر مقدشوا وجدي ماشي عم حاكم بلا سؤالهم
intuu ka bilowdaa meesha madaxweynaha oo dhagaxa dhigay 7 Febraayo madaxweynaha dhagax dhigay oo ballan qaadnay ilaa iyo haddana alxamdulillah wax dhallaanayna halkan waa meesha ay ka bilaabato taalada daljirka daxsan waa meel roon abawda sida u qurxan tahay wal weeyaa loo gala layskama galo markaa galis dhinaca ka soo geli sharaale ka soo bilaabataa wadadan degmada Boondheer waa meeshaas ku xigta waa u jeedin meeshii bacda biyaha la dhihi jiray biyaha yaalleen waa aragtiin hore u soo soco xamar bile iyo geeskaas oo ka maraya dadkiisa inuu Ilaahay sahlo oo qof walba barabalanka Ilaahay meesha wax ka hayaan ka qaado insha Allah kadaalan ka duceysan doonaa doo Allah ka raali noqdo insha Allah السلام عليكم وهي سنجان أيضا ورجعي تيجي لك في السبب وما صدق ولا برقنا بالله ما شاء الله وشن بقول كرام وماما مريم هرابة وأبويا بوضي وضد جنرال داود وهي سجان أيضا عبد هي سجان ما شاء الله وعن سجينا حافظها كالأنجرد برقون حافظها كالنوا سجينا فوزيو وحافظين برقون فوزيو برقون ما شاء الله ما شاء الله فوزيو إسقاط فوزيو إسقاط فوزيو إسقاط فوزيو إسقاط ما شاء الله ما شاء الله آمين النور عبدي ما شاء الله آمين النور عبدي حافظ داوان برقون آمين النور عبدي برقون آمين النور عبدي دولار يا ذهب ما شاء الله سهرة شاطح وشن بقول كرام حافظة سهرة برقون اوكي جريليس كده انا اصفر جريليس ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ilaahay goor soo dhawaana programkan annaka gadaal ayaan ka ogaanay annagoo ilaa 20 gabdhood gaarayno insha Allah taala waxaan ugu talagalnay waa soo dhiibaynaa waana diyaarinaynaa waxaan idin wadnaa hadiyad labadiina idin gaar ah insha Allah Janal Daawud wadada wixii lagu dhisi lahaa waanu diyaarinaynaa sida ugu dhaqsaha badan Soomaali weyn waa gabdhaha ismahaan ayaan magaceeda garanaya gabdhaha kale hadiyada aad ugu dala gasheen Maryan Jacayl iyo waliba Caasha Geesdiin aad ayaad mahadsantihiin واسمهان آذن لول موسى هذا سني بارلين علي عنب أحمد شهمات إيوه شهمات تانكس هذا يا دبا سنتين ما شاء الله عنك يقطع ولول مختار شنبقر وكران حافظ بارقون هسه عند سيد الله مطلق waa hagaag daawadayaal waxaa la soo gaaray xilligii aan hadaha iyo kala hawada isku macsalaameyn jirnay intaan dib dambe u kulmi doono isbuuca dambe haddii allaha awoodda leh ogolaado waa farsamadii iyo weliba kaamiradii mahadii aan ka gaadhay Xuseen Cabdi Calasow anigoo Anfac Cumar Cadoowe ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo Shadow,
dalkayga